waraxmatullahi wabarakaatu arday kusoo dhawaada mar kale iyo xiisadeenii sagaalaad ama lesson 9 maanta waxaan ku qaadanaa xiisadeenan sida google-ka wax looga raadiyo haddaba marka aad rabto inaad wax aqoon ku saabsan ama wuxuu doona ha ahaadee aad rabto inaad google-ka ka raadiso marka waxaad ku qoraysaa wax kastood u baahan tahay google-ka ayaad ku qoraysaa marka haddaba bal waynu wada eegi doonaa sida wax looga raadiyo google-ka hadday sawiro noqoto hadday video noqoto hadday heeso noqoto hadday codad noqoto hadday quraan noqoto hadday xadiis noqoto waxay doontaa noqoto anything marka maxaad sameynaysaa google-kaad soo furaysaa chrome-ka ama browser-ka aad internet-ka ka gasho ku doonaha noqdee ayaad soo furaysaa browser-ka maxaa la idhaha waynigii hore usoo sharaxnay waa ka kuu sahlaya inaad internet-ka gasho marka maxaad sameynaysaa google chrome-ka daad soo furi kartaa kaa doontaad soo furi kartaa marka hadda arkaysaan arday waxaan soo furay kaasan soo furay ka calaamadaa leh saad arkaysaan ka calaamadaana soo furay saad arkaysaan arday si aydaan u garan waayen google chrome baa la idhaha saad arkaysaan marka calaamadaasuu leeyahy google chrome baa la idhaha marka calaamadda kaale baan soo furay marka arday markaan soo furo halkaas sare waxaad ku arkaysaan meelay ku taalo ku qor waxaad rabto oo boodboodaysaa marka google.com baad ku qoraysaa google.com markaad qorto inter baad siinaysaa marka maxaad sameynaysaa inter markaad siiso halkan uu kusoo saaraya haddaba halkaasaad ku qoraysaa everything you need marka maxaad ku qoraysaa markaa tusaale waxaad ku qoraysaa tusaale ahaan book baad ku qori kartaa tusaale waxaad ku qori kartaa waa maxay macdintu tusaale ahaan waxaad ku qori kartaa waa maxay waxaad doonto tusaale waxaad ku qori kartaa tusaale macdinta oo kale macdinta tusaale markaad macdinta ku qorto inter baad leedahay marka wuxuu kuu soo saaraya kumanaan waxbuu kuu soo saaraya saad arkaysaan halkani waa inter resultiu kuu soo saaray 151,000 oo posti ama qoraal ayuu ka hayaa macdinta 151,000 oo documenti oo isugu jira wax la soo dhigay sawiraan wuxuu doonaa noqdo ayaa laga hayaa macdinta marka dhammaan waxa laga hayo ayaa qaybta ku arkaysaa haddii aad rabto waxa laga hayo waxyaalo kala duwan oo kamid ah aad rabto in lagu raadiyo maxaad sameynaysaa halkan waxaad ku arkaysaa sawirada ama photos ba halka ku soo baxaysa haddii English kugu qoray photos ama images ba halka ku soo baxaysa videos ba halkan ku soo baxaysa ama fiidiyaal oo time-ka Soomaaliya ku qoran tahay in ka sii badan wax kale oo ka sii duwan hadaad rabtana halkaas aad ku qoranaysaa marka maxaad sameynaysaa sawirada oo kale hadaad rabto sawiraanta laga hayo macdinta sawiraad dooranaysaa haddii lagu tuso marka waxaa soo sawir inoo soo saaray hadaad rabto video ama muuqaalada laga hayo ama videos-ka laga hayo maxaad dooranaysaa video marka sida imika tusaale ahaan halkan aad ku arkaysaan sida loo aqoonsado macdinta dahabka ee tusaale video weeyankaas waxa soo muuqaalaba ku soo saaraya sadarkiisaan arday marka waa caynka weeyaan marka haddii aad rabto ool baad oranaysaa saasoo kale wax looga raadiyaa marka everything waad ku qori kartaa meeshan tusaale ahaan dacar saasoo kale ku qoraysaa marka dacar markaad ku qorto wax kasta oo dacar ku saabsan tusaale ahaan haddaad ku qorto xanuunka tusaale ahaan saasaad ku qori kartaa wuxuu doono kuu soo saari karaa marka muxuu kuu soo saaray xanuunka iyo danqashada marka wax alle everything aad u baahan tahay baad ku qoraysaa haddii aad rabto google-ka inaad ka raadiso weeyaan haddii aad rabto meelo badan ba wax laga raadiyaaye haddaad rabto in muuqaalo aad daawato ku saabsan wax kasta oo aad doonayso inaad fahanto maxaad ku qoraysaa youtube-ka youtube.com baad leedahay youtube.com baad halkaa ku qoraysaa ama application-ka youtube-ka hadduu mobilkaaga ku jiro application-kaad soo furaysaa kadibna meesha searching-ka waa tan meeshii searching-ku kadib searching labaad baa kuu soo baxaya oo kii hore aynu ku qornay website-ka ka hooseeya oo website-ku gaar u leeyahay kadibna searching-ka website-ku gaarka u leeyahay ayaad ku qoraysaa tusaale ahaan waxaad ku qori kartaa cudurka corona virus oo kale ku qoraysaa corona virus saasoo kale inter baad leedahay kadibna marka muxuu ku soo saarayaa xanuunka corona virus waxyaalo ku saabsan oo kale marka saasoo kale kuugu soo saaraya everything marka arday saasoo kale ugu qoraysaan saasa wax looga raadiyaa google-ka iyo youtube-kaba labadaba marka haddii aad rabto waxyaalo kale oo kasii faahfaahsan inaad ku raadiso tusaale ahaan filter haddaad taabato waxaa kuu soo baxaya intan oo qoraal baa kuu soo baxaya filter maxay tahay shaandhe intaasoo imika dee saad arkaysaan arday wuxuu inoo soo saaray tusaale ahaan kumanaan muuqaal buu kuu soo saaraya kumanaan oo aan kala joogsanayn buu kuu soo saaro coronavirus ku saabsan
haddaba kala shaandhay markaad is leedahay ma kuwii ugu dambeeyey eeg upload time type nooca uu yahay videogu ma channel baad rabtaa maxaad raadinaysaa ma muuqaal baad raadinaysaa ma channel baad raadinaysaa ma playlist baad raadinaysaa ma movie baad raadinaysaa ma show baad raadinaysaa ma muuqaalkaagu durationka muuqaalkaad raadinaysaa waa intee ma 4 minute ba ma 4 minute wax ka dhaadheer ba ma live ba oo imika lagu jira videogaad raadinayso ma 4K ba iyo waa HD iyo mise waa HD 4K waxa la yiraahdaa waa saafinimada ama kaleernimada muuqaalka waa ka ugu sareeya HD na waxa weeyaan waa muuqaalka oo safeexa ma subtitle CC kuwa isturjuma ma 360D marka nooceed rabtaa ma upload date ma date-kii lagu soo upload gareeyaad rabtaa inaad qorto oo meeshaad ku qorto ma wuxuu ku leeyahay view count ma tiradaad rabtaa inaad i tusto view count imika haddaad tiraaho tiruu ku tusaya marka insha allah arday intaas nooc buu kala baxaa marka maxaan sameynayaa tusaale ahaan imika tusaale ahaan kuwani waa tirooyinka muuqaalada ku saabsan marka maxaad sameynaysaa last hour muuqaalkii ugu dambeeyay saacaddii ugu dambeysay lasoo dhigay baan doortay markaasaad arkaysaan 1 minute ago baa lasoo dhigay tusaale ahaan videoga yar baa lasoo dhigay ee ku saabsan coronavirus ku qoran tahay 1 minute ka hor baa lasoo geliyay saad arkaysaan waa saas oo kale arday marka qaabkaas wax looga raadiyaa marka tusaale ahaan warka aad rabto oo qof Soomaaliya tahay warka marka intaasoo kunoo war baad arkaysaa tusaale ahaan kani waa 8 bisha kani waa 10 bisha marka kii ugu dambeeyay kani waa 11 bisha oo maanta sayn arkayno 1 hour ago halkaas aad ka eegaysaa 1 hour ago ayuu soo galay kani marka haddaad rabto laakiin in TV-yada oo dhan warkii ugu dambeeyay aad hesho maxaad sameynaysaa filter baad taabanaysaa last hour baad oranaysaa ama today baad dooranaysaa today haddaad dooratana saacaddii ugu dambeysay intaasoo war bay Soomaalidu soo gelisay intaasoo war bay saacaddii ugu dambeysay ay soo geliyeen Soomaalidu waxaa soo war dadka Soomaalidu waxaa soo war soo dhigay haddaad rabto today wararkii maanta haddaad rabtana waad soo furaysaa today baad dooranaysaa arday waa intaasba simple marka waxaa soo waray waa maanta la soo geliyay waxaa soo war waa today 24 saac ugu dambeeyay la soo geliyay waxaa soo warara marka arday inta markaad ila fahantaan wax walba waad wadan kartaan marka tusaale ahaan YouTube-ka Gmail account-kaaga ku galaysaa waayo waa shirkad youtube.com waxay hoos timaadaa Google account-ka marka haddii aan account-kaygan ka baxo tusaale ahaan dub baan u geli karaa oo Gmail account-kaagiiba ku weydiinaya si aad comment uga bixin karto muuqaalada si aad raygaaga ugu dhiiban karto saad doonto si aad u oran karto tusaale ahaan video meesha ayaa comment kama bixin karaa arday haddaan Gmail account-kayga gelin marka tusaale ahaan filinkan oo kale ayaan taabanayaa soo furayaa filinkan markaan soo furo wuxuu ku odhanayaa arday filinka markaad saa soo furto comment oo kale rabaa inaan ka bixiyo commentiga markaad saa u taabato wuxuu ku odhanayaa account-kaaga oo uu kaa wareejinayaa meeshii markaba wuxuu ku odhanayaa Gmail account-kaygii baan dooranaya marka Gmail account-kayga markuu kaa yahay wuxuu ku odhanayaa password-ka geli haddii password lagu weydiina waad gelinaysaa haddii aan password lagu weydiina horu kugu gelayaa oo already waad ku jirtaaba laakiin password-kii weydiinaya marka saad arkaysaan arday marka password-kaygan gelinayaa marka enter baad leedahay kadibna saasuu ku galay already YouTube-kiiba kugu celinaya kadibna marka YouTube account-kaagiiba kugu celinaya kadib sanoo kale bogan kugu soo saaraya arday marka imika comment waan ka bixin karaa waayo inaan ku jiro account-kayga maxaan ku garanayaa halkaa waxa isku soo qoraya magacaygii ama yar baa isku soo qoraya ama sawirkii Gmail-ka ku yaalay marka kadibna waxaad sameynaysaa comment waad ka bixin kartaa haay baad iska qori kartaa enter baad leedahay comment baad taabanaysaa halka ku taalo marka saas oo kale marka comment-gayga waan ku galay markiiba oo ka meesha ku qormay marka arday taana waad ila fahanteen ma filaya wax badan baad ka fahanteen marka insha Allah casharkeenu maanta halkaas inoogu joogi doonaa waxaad fahanteen qaabka wax looga raadiyo Google-ka iyo YouTube-ka intaba marka insha Allah tan iyo inta ku kulmi doona xiisada soo socota hadda waa la idmo nabaday